Soomaalidu diinta Islaamka boqolkiiba muslim baan nahay koon boqolkiiba muslim baan nahay xagga nidaamka juqraafiga boqolkiiba muslim baa tahay laakiin xagga salaada tukashadeeda boqolkiiba misaynaga tukata imisa diin ku dhaqanta imisa diin jecel imisa diin ka shaqaysa imisa diin barata imisa diinta qiimaysa boqolkiiba muslim waa tahay xagga juqraafiga laakiin ku dhaqanka ah Islaam كمجتمع ما أنت وحنا بعنا هاي إن هلا مجتمع دين كل نقماية نبي محمد عليه الصلاة والسلام تذكر النبي محمد دين بكبر إنه شو ده دين فقال هذا مدينو يمد النبي أقل اسمه أقل استكما فكرنا كما بلابن أما قدرتكم قال هذا المقدسين هذا النبض عيد الإمام وحبيد السنة يعني وروح عبد السنة سواها كهر أيها المسلم ذاتك إن لا دسام ما أنت أمر بعنا هاي ذاتك إن لا دسام يقينتooda la dhiso salaadooda la dhiso aqoontooda la dhiso akhlaaqdooda la dhiso dhaqankooda la dhiso madiinu soo gaaray nabigu kaleey salaatu wasalaam halku reerkiisa dhigi lahaa nabigu ma calaamadeysane masaajid buu nabigu umada u calaamadeeyay masaajidku waa meesha muslimiintu ilaahayna kaga xidhmaan ayaka dhexdoodana iskaga soo xidhmaan weeyaan laana masaajidkii faqiirkii baa iman oo madaxdii baa iman oo masaakiintii baa iman oo musaafirkii baa iman oo reemigii baa iman oo reemagaalkii baa iman oo kii bukay baa lagu ogaan oo ka magaalada ka maqan baa lagu ogaan oo ka dhintay baa lagu ogaan oo ka guursanaya baa lagu ogaan masaajidku waa meesha dadka muslimiintu ay ahwaasha ku kala qaataan ee iskaga warhayaan ee isku ogaadaan ee isku salaamaan weeyaan ay ku kulmaan weeyaan waa meesha yakuna iskaga xidhmaan dadkana dadkuna ilaahay ay kaga xidhmaan weeyaan masjidku marka dadkeena intee maanta masaajidda ku xidhan dhalinyarada inta masjidka ku xidhan iyo inta facebooka ku xidhan midkee badan yaa awada qososheene arbaalkaas oo haysta baalkaas maskaxdii indhihii inagala baxay ilaahu naga soo saar aamin dhahada ilaahu qalbigeena ka saar ilaahu qalbigeena waxa ka madoobay jacaylka bahalkaas waqtigiini oo dhan maanta waxa uu kulmay maaragtaana waa bahalkaas marka nabigeenu kaleey salaatu wasalaam 23 sanadood wuxuu ku dhisay ummad isku niyada isku hadafa isku meel u jeeda isku aragtiya ummad meel u jeedu nabigu keenay adduunka meel wada socota ummad kala socota ma ummad wada socota ummad isku qalbiya isjecel isku damqanaysa isku naxariisanaysa isku ducaynaysa islaamnimada wuxuu ku zuuliyay qabyaaladii buu ku baabiyay rasuulku qabyaalad Bilal al-Habashi ya Salman al-Farisi ya Suhayb al-Rumi ya Umar al-Qurashi ayu nabigu meel kale wada fariisiyay markaasuu nabigu la fadlan li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa wali dhageysta buu nabigu kaleey salaatu wasalaam dadku aadan bay ka soo wada jeedaan aadan baa inni wada dhalay oo nabi aadan awlaadiisii baa tihiin aadamna carra ayuu ka soo jeedaa oo nabi aadan ciid baa laga sameeyay ninka carabigu ninka ajamiga kagama fadli badan carabnimade waxa lagu kala sareeyaa buu nabigu waa la ka cabs waxa lagu kala sareeyaa alla ka baq taasuu nabigu umadiisa u baray ala asaas al-iimaan markaasuu ninkii muhaajirka ahaa ee ka kala soo hijrooday waxa uu la walaalayay nin ansaariya ninkii ansaariga Madiina sii joogay ee dadka magaalada Madiina dagaankooga ahaa waxa uu nabigu walaal kala dhigay nin ansaariya Sa'd ibn Rabi' iyo Abdurrahman bin Auf ayuu nabigu walaala uu ka dhigay Sa'd ibn Rabi' gacantu qabtay Abdurrahman bin Auf wuxuu dhigayso maadaama nabigu walaala labadeena uu naga dhigay ninka magaalada Madiina ugu dhaqaale badan baan ahay maanta laga bilaabo dhaqaalahaygii waka waxa doonta ka qaada buur waxa doonta ka isticmaal hay weydiina liga buugay laba dumarana waa leeyahay buur taa jacasha hay sheego waa ku dhisay buur
aqalladii siina uu tusay kala dooro aqalka doonto waa ku siinay madaxa intuu taabtay buu ku yiri walaal adiga iyo xoolahaaga iyo reerkaaga iyo ehelkaaga Allah ku barakeeyo buu ku yiri anigu nin ganacsiga aqaana ayaan ahay suuqa magaalada Madiina igey buu yiri marka suuqii magaalada Madiina tusay dalay Mus'ab bin Umar Abdurrahman bin Auf markii dambe taajirka magaalada Madiina isaguna u noqday كان مؤمن سلامته كان ولعبته كان ووقل كان يسي مؤمن أصحاب الطمع ملحين ضد قناعة على بيهايين ضد دور صوم بيهايين إنك ضدك مسلمين ثم أنت إسكت الله كله هي أذها سيل دعاقي دقالة وجهل لهايين أي أقل يربول له بين بين سمسم بين بين بول بين بين سو مجرو بس أدوك المبي يلا ملاه بولش بوش أقل بوشة أو بين بين هذا ميدا سكوريين بهيادة الله شقايا مرقا بولي مالنتاسن هيادة سو ودايه أقل دي يريد بوششكي سيدح فريستا مرقا سميد أيدي يدوغا مدح فريسين وراوي إيمانك إسلام لما دي آوي بريق قال وح قال لغا سو قادي أيا مسلمين تسلا بريان مانتا دوقي إيمان تو سو كحينا أقل دي بوششكي لدح فريسي ولغلي هاي مالنتا هيادي بسو مريسي معويو يو نوغا سي قال halka si fadhiyo iska sabir oo biyahana si cabo kuleeya war maxaad wax duqdo cadibaysa ilaahay ma gacma hoos dhigatida hay abaartu la fayd milaadahay maanta ha colaadu la fayd milaadahay ha roobkii ma aragtaan la bila barakada uu noqday laana qalbigi ba jeestay maanta maalinta ummadan ilaahay u soo noqoto ilaahay xaaladda isaguna uu badili إن توبت كنا نبهنا مركز نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة ديسا وحقوق بري إن إلهي بريان إن باهدوا إلهي أشيكتا إن قناعة موجيان قناعة والقناعة كنز لا يفنى قناعة قفك بن آدم كهضوه له وخزنت قفك على كذا ماني قال السيدي اللون بري أيان إنكونا ما أنت هلكا أيان مرينا هلكا تعني شقية طول مدى صحابة رسولكنا سعد بن الربيع بودع يا عبد الرحمن وحكويري حولها قال الله كو بركايو غيرك قال الله كو بركايو نين غنعسغا اقانا ايان اهي مغالده مدينه سوقي غيدا دحي بو الى markay u dambeysay uu noqdo taajir tujaartii reer Madiina kamida markaas uu isaguna sida uu bixinay xoolihiisa sidaas فقيركوغي با إلهي كو حرمي غنيغوغي إلهي بو كو حرمي مدحدود إلهي بي كو حرمان دليردود إلهي بي كو حرمان هوينكود إلهي بي كو حرمان تجارتود إلهي بي كو حرمان ريميغوغ إلهي بي كو حرمان ريمغالكوغ إلهي بي كو حرمان هرومركو ماهن ودن لغو سميو إيغا دختر لغو سميو هرومركو ماها هرومركو waxa weeyaan waa dadkan oo Ilaahay sida wax looga qaato la bara horumar la yiraahdo dadko barta sida Ilaahay wax looga qaato taas horumar la yiraahdo